وما تنتهي الواحد آدي آدي وكل سلام يا والله لو أنا بجيرو وحور قد أو معمل قلبه أو صوص علي أو مارتي جنا ستو يو ضد أنواع أركي وراق أو قدومي كحياة تجمع قلبه كقرط هاي وأركي وحور قد أو معمل قلبه أبي هاي مجلسه مجاعات iyo cid iskale gudoomiye ku xigeen waa jira oo meelaha maartay area jooga laakiin hadii uu isagu soo saarayna maartay oo isagu uu qorayna waa warqad oo maartay beelidida meesha isku dagaalama waxay uu soo qoreen waaye haduu ku kamid yahayna waa soo qoray iyo waa midid oo macnaha qolyo kale u la jeedo oo qabiil kale u la jeedo waaye hadii kalena wax maamul oo og yahay oo soo saarna ma jirto wax warqada oo ceelbuur iyo nooc warqad ceelbuur loo qoray iyo maartay sharciyo waraaq ceelbuur hal ay ceelbuur ku taana ma jiraan wax ka waraaqaha xafiiska ceelbuur ka soo baxay ay macnaha waxay ku tahay magac dil hadii uu ninkaas soo qorayna hadii uu isagu qorina isaga laga rabaa inuu yiraahdo anu ma qorina waa la iga beer abuurana inuu yiraahdo isaga laga rabaa idaacadaha iyo baaraha bulshada uu la soo xariir aniga warqada soo saaray ma dhihin mana ii sheegin ninkaas ma jirin wax ogaal ah oo adiga gudoomiye ku xigeenkaagu aad isaga warqabteen oo la xiriiray in amar la soo saarayo wallahi inii wata gudoomiye ku xigeenka warkiisa ma raba hadda inaan ku fogaado hadda macluumaad kama warhayn adiga dadkuna qof walba sibay waxbay ku sheegaysaa laakiin wax haba yaraatee xiriir oo aan ka sameynay iyo wax wada hadal oo ka sameynay iyo wax shir oo aan ka galnay iyo wax oo caqabada iyo waxa warqada ku qoran oo sheega oo meeshaas ka jiraan ma jiraan arina loogama taafado sababna ari cid uma dhiibtaan iyo xoolo ninka la yiraahdo waxooda ayaga inta ka soo qaadaan almo iyo gacaga ka qaadaan ilaa kismaayo geeysa kalena xilliga xataa ay jeesku ka xiraayeen ma joogaan oo kismaayigiisa kala raday rabaan iyo dhulay iyagu ka taliyaan oo balaariye jili ninka la yiraahdo wax oo laga xaro iyo cid ka rasta iyo cid shacab oo la shaqeyso oo ayaga u adeegto waxa ku qabataana ma jirto isna waxa ku aamiinayaan oo diiban maayaan markaasi waxay iyagu qaadanayaan dadka lacag ahaan u qaataan meeshaas waan ognahay waxay ka qaataan hadii ay xoolo dadka qaataan way lacageystaan sidaas awgeed macnaha hadalkuwa warqada ku qoran wuxuu ahaa hadal oo macno kale iska labo macnaha kale balse beeladka meesha maartay isku xabadaynaho maamulka magaciisa inay dhaamaan raba inay yihiin u maleyn waxa qoray ma ahan dad maamul iyo xafiiskeena ay soo baxdo ma jiro haddii aad soo hadal qaaday isku dhacyo beeled dhawaanaha waxaa ka jiray deegaano hoostaga degmada ceelbuur isku dhacyo bal arrinta waxa ay ku saleysnaayeen iyo waxa laga qabtay inta ogaalkaaga ah laadeerow horta ku saleysnaan waa iska naqaanaa adigu muddo og bilood ka horena waa jiray oo maartay waa wax meesha ka jiray oo ila muddo soo socdo wax hadda go'aan oo laga gaariyay wax heshiis oo ka gaarin ma jirin hase ahaatee dad xoolo raacata oo dowladdu ceel isla caba wax ka bilowday bay ahaayeen ilaa haddana wixii way jiraan oo hadda maalmaha way yar xoog lahaayeen oo haddana waa mar kale ay kaceen anigu de aqyaasta gudaha ku jirta oo maartay nimankaas aaga ay hadaan ku jirtaan waa la hadlay kuwa kale banaanka joogaan waa la hadlay in dagaalkaas oo looga baaqsado sidaas awgeed dadka shacabka oo beelaha oo meesha ku jirada laftirkooda shakhsiyaadka kala xiriira labada dhinac inay baadiyaan maartay waa ku daalay waxaan leeyahay ilaahay ha qaboojiyo wada wax kale awood oo aan anigu shakhsiga qaban karo male kaliya waxaan baa ku dirayaa maamul goboleedka galmudug inay maartay sida ugu fiican inay maartay wax uga qabtaan maartay wixii ay ka qaban karaan oo karaakooda maamulka oo anagu aan ka mid nahay oo hoosay ma tuumaysaan in gacanna shabaab ay ku jiraan oo colaadan iyo isku dhacan ay hurinayaan adeerow horta shabaabku shaqadooda ayaga meeshii oo dagaalka dhaca waxay u tahay difaac
oo iyo derbi oodana u tahay meesha laba beelood isku hayso qaabku marka qaababka waa naqaan inta aad ogtaan cabdi wax ka soo shaqeynay ilmaha baan ku ahay marka waxaan ku sheegay qaabka soo kala shabaabku kooda hore curinta ah ayay sameeyaan maalinta koowaad wixii ay dhibsanayaan curin sameeyaan xilligii qolayska lagu hayo dagaalada lagu hayay ayay maaragtay waxay meelaha wax ka shiteen inta ka dambeysana wiil reer baadiya xabadayaha waayo shala ay saakeen wax luga oo hadda ay ku leeyihiin iyaga oo shaqaaho ugu dhex jira oo inay anfacdo aan ayn ma jiraan shaqadan waxay qabsadeen 4 bilood ka hor ay qabsadeen ay meesha xoogaa lugta isu geliyeen qoorta dabadeedna ayaga nidaamka ay rabeen waa u socdaa oo in xuduud meesha ka xirantay rabeen waan uga xiranta marka hadda wax luga kuma laha waxa weeye koox maleeshiya oo baxday aqal soo gubtay dad goobtay kuwa kale maleeshiya oo baxay kuwa meel jooga u tagay xabada ku furay dad dilay kuwa kale maleeshiya kale duushay مثلا مركلا أيوة كوا كانوا الجو وتغير حبة كوسا فوري أو ساس اسكو دجالين نوع عاصي كوسا عطا إلا هذا مركا شقة أنواع شقة أوريد ميوي أو قرشة كوا مغطى إلهي قرشة إن شاء الله. ودم بين حاجة بدالك وحجرتك اللي حلين لها اسكو عاص يكالين تي ماملك حاجة بي. هذا الوقت ماملكو مركو isagu awood leeyahay oo meeshiisi joogo horta wax qaba kala maana meel koona wax soo dirira sida aad ogtahay ba abdi waahid hal dhinac meesha maleeshi isku dirire dawladda ciidankeeda iyo madakana meesha marka meel aan amni dawladeed iyo aysan ka jirin oo maamulku aysan amnigeedii iyo aysan sugi karin maamul waxba kama qaba karo maamulkeena waa garanaysa waa maamul xaruntiisa Elbuura oo nimankaas cadawga ay haystaan marka timid maamul horta ma jirta midda oo maartay oo hoose maamul hoose ma jiro maamul goboleedka oo galmudug ciidamo badan ku duula meesha oo maadaama uu isagu awood u leeyahay waa sidii karaan madaxdiisu wax waa badal qaba karaan saas ay tahay hal dhinac sarka karna dhinaca kale isma arki karo